puntland waxaa la dhisay iyada oo deegaanadeeda ay ka jiraan hal waddo oo laami ah iyo hal dekad maantana waxa ay leedahay 2 dekadood oo kala ah dekadda Garacad iyo midda Boosaaso oo la ballaariyay waxaa jira laamiyo cusub oo isku xira gobollada Puntland iyo buundooyin waaweyn oo dhexmara magaalooyinka iyo weliba golayaal deegaan oo shacabku ay soo doorteen garoomadii diyaaradaha oo casri ah garoomadii kubadda cagta oo cagaaran xarumaha hay'adaha dawladda oo aad u shaqeeya nidaam dawladeed oo casri ah kumanaan shaqaale dawladeed kumanaan arday ah oo si joogta ah uga aflaxa heerarka kala duwan ee waxbarashada ciidan dhisan oo bad iyo birri ka howlgala iyo shacab isku duuban oo dawladnimadooda ku garab taagan in ay ka dhabayso rabitaankooda dhulka Puntland waxa uu leeyahay taariikh ka qoto dheer inta muuqata waxa loo yaqaan dhulka Udugga wuxuu aan ku ahaa kuna yahay Maydiga iyo Fooxa waxa uu ganacsi kala duwan la lahaa boqortooyooyinkii adduunka soo maray dhulka Udugga waa magac taariikhi ah oo qarniyo soo jiray oo lahaa saldanooyin iyo boqortooyooyin qarniyo badan talinayay xurriyaddii Soomaaliya ka hor waxa ka dhashay dhulka kan hogaamiyaashii gobonnimo doonka iyo madax bannaanida gaarsiiyay Soomaaliya oo u dhabar adeegay waana meesha uu ka yimid calanka Soomaaliyeed ee dalkeennu maanta uu ku midaysan yahay Soomaaliya markii ay burburtay dawladda dhexe oo qolo loo dagaalamay oo qof walba meel uu furxaday rajadii dalka iyo dadkuna ay qus noqotay ayaa dadka reer Puntland waxa ay soo nooleeyeen inta ay isu yimaadeen dhismihii nidaam dawladnimo oo ay isku maamulaan Soomaaliyana ku badbaadiyaan 1998 waxaa la dhisay dawladda Puntland oo loo doortay madaxweynihii ugu horreeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo markii dambe noqday madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya madaxdii soo martay Puntland mid walba waxa uu taagay tiir adag oo uu ku kordhiyay shaqadii hore loo soo qabtay iyo dhamaystirka qorshihii ka horreeyay oo ilaa iyo maanta socday haddii ay noqon lahayd horumarin iyo amni waxaan aad ugu faraxsanahay in shalay markii Puntland la asaasay lagu asaasay xoolo reer Puntland leeyahay oo xoolaha adeed iyo xoolo dawladnimada lagu asaasay dadka xoolahooda iyo rabitaankooda ku asaasteen waxaan haysanaa magaalooyin kooban caasimadan maanta aan joogno ballaaran waxa ay joogta buundada baarlamaanku waxaan ahayn muxuu ahaaye baarlamaan kooban oo 2 gaadiid kaliya haysta dadku niyad wanaagsan yihiin waxaan haysanay hal jid oo muxuu ahaay magaalada dhexmar guud ahaan ilaa magaalada gees ilaa gees maanta waxaan haysanaa muxuu ahaaye 2 dekadood noo shaqeyso waxaan haysanaa airport noo shaqeeyo waxaan haysanaa shidada isaga gudba Puntland oo dhan waxaan haysanaa horumar ballaaran waxaan haysanaa waxbarashadii adeegyadii bulshada oo dhan oo wada kobcay marka dadka reer Puntland waxaan leenahay barwaaqadaas aan haysano waxa keenay dawladnimada kala dambeynta keentay waxaan leenahay aan ilaashano aan ku far adeegno horumarkuna ha ahaado mid marba marka dambe ka sii socdo dawladda Puntland ee iminka talada haysa ee uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxay qaaday tallaabooyin taariikhda galay sida ciribtirka argagixisada Daesh iyo Al-Shabaab oo laga sifeeyay magaalooyinka waaweyn ee Puntland oo inta loogama harin waxa lagu qaaday guluf ciidan oo argagixisada Daesh oo u badan ajaanib looga sifeeyay buuraleyda Calmiska Puntland warigeed argagixiso qabsan mayso والله ciidamada Puntland waxa ku sifeeyaan garanaayo oo runtii iyadoo howlgalkaasina uu iminka gabagaba yahay oo meel walba inta yar ee soo hartayna ay ku hareeraysan tahay guushaas ilaahay mahadiha ka gaartay ay horseeday dawladda Puntland ciidanka iyo shacabka dal iyo dibadba Puntland waxa ay ka dhigtay meel adduunku uu ka tusaale qaato sida ay isaga celisay argagixisada waana la isla qiray guushaasi ay soo hayeen ciidamadeeda geesiyaasha ah Matter of fact, an example of that right now is what just happened recently in the Golis Mountains where ISIS is, where we worked with our partners there in Puntland to provide what only the United States can provide, to provide intelligence, targeting, and selective airstrikes. But we enabled the partner who had the will to go up into those mountains and go after the ISIS. Puntland maanta waxay leedahay ciidan difaac oo xoog leh oo ka howlgala bad iyo biriba kuwaasoo ka kooban ciidamada daraawiishta bilayska asluubta ciidamada badda BMBF iyo nabad sugidda dawladdu waxa ay muhiimad siisay tayeynta ciidanka iyo tababaradooda iyadoo kor loo qaaday mushaharaadkooda iyo adeegooda waxaa la dhisay xarumaha tababarka ciidamada ee gobollada oo soo saara guutooyin ciidana oo tababaran
sidoo kale waxaa la horumariyey ciidankii bilayska iyo tayeyntooda iyadoo gobollada laga dhisay talisyada ciidamada booliiska ee horumarsan amniga iyo sarreynta sharciga waxaa sal u ah garsoorka dowladdu waxay dhistay maxkamadda dastuuriga ah waana midda keliya ee soomaaliya ka dhisan waxaana la tayeeyey garsoorkii waxaa dib u habeyn lagu sameeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale la horumariyey xarumihii ay ku shaqaynayeen garsoorka ee dhammaan gobollada puntland maantay maxkamadaha kiisaska ay qaadaan si toosa dadku oo furan waxay ugala soconayaan warbaahinta derbigii labaad ee dowladdu ay jabisay waxa uu ahaa caqabadihii hor taagnaa dimuqraadiyadda ka dhalatay puntland oo muddo dheer lagu taamayey dowladdu waxay hirgelisay nidaamka xisbiyada badan iyada oo talada dadka dib ugu celisay waxaana doorashooyinkii golayaasha deegaanku ay ka dhaceen 36 degmo kuwaasoo bulshooyinka ku noole ay maantay u adeegaan golayaashii deegaanka ee iyagu codkooda ay ku soo doorteen hirgelinta dimuqraadiyaddu waxa ay ka mid ahayd ballanqaadkii axdigii lagu yegleelay puntland 1998 derbiga saddexaad ee laga gudbay waa kaabayaasha dhaqaalaha oo dowladda puntland xoog iyo xeradba ay isugu geysay waxaana iskutashi lagu dhisay dekedda garaacad oo ah mashruucii ugu weynaa ee dalka ka hirgala tan iyo burburkii dowladdii dhexe sidoo kale waxaa la ballaariyey dekedda boosaaso oo maantay maraakiib waaweyn ay ku soo xirato waxaa meel wanaagsan maraya dhismaha waddada ceeldaahir ilaa iyo ceerigaabo oo hadda gaadhay baran waxaa dib loo dhisay waddada weyn ee gobollada isku xirta oo dayactiri uu ku socdo taasoo hadda maraysa bacadweyn iyo gaalkacyo dhexdooda waxaa laga dhisay magaalooyinka waaweyn boqolaal waddooyin yaryara oo magaalooyinka dhex mara caasimadda garowana waxaa yeelatay buundadii labaad dhinaca kale waxaa la horumariyey garoonnada diyaaradaha ee puntland kuwaas oo maantay puntland ku xidha dunida inteeda kale loona diyaariyey inay la jaanqaadaan adduunka waxaa ka mid ah casriyeynta lagu sameeyey garoonka diyaaradaha ee boosa kan garowe iyo kan gaalkacyo iyo habeyn ku socota garoommada diyaaradaha ee magaalooyinka galdogob baran qardho iyo garacad halkii laga soo bilaabay iyo maanta halka ay maraysa puntland marka la eego isbeddel weyn ayaa laga sameeyey horumarinta maaliyadda waxa ay u shaqaysaa si casri ah iyadoo la hirgeliyey hannaanka sanduuqa midaysan miisaaniyadda gudaha oo lagu bilaabay puntland waxay ahayd 2,400,000 sannadkii maanta puntland gudaheeda waxaa ka soo xarooda sannadkii 140 milyan oo ah canshuuraha gudaha iyadoo la horumariyey kastamada dhismaha bangiga dowladda puntland oo xarumihiisa lagu fidiyey gobollada oo dhan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah oo mushaarkooda la kordhiyey waxa ay u maraan hannaanka diiwaangelinta ee biometrik waxa iyana la kordhiyey mushaaraadka wasiirada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha kale ee dowladda puntland waxa ay dhiirigelisay ganacsiga iyo maalgashiga iyadoo kulamo heer sare ah oo maalgashi ah lagu qabtay magaalooyin kala duwan dad badan oo ka soo laabtay dalka dibaddiisuna waxa ay maalgashi xoog la geliyeen gudaha waxaana dowladdu ay u fududaysay dadkaasi in ay waddanka ku soo kordhiyaan ganacsi horumarkiisa wata wax soo saarka ayaana kor loo qaaday iyadoo maxjarrada xoolaha la horumariyey oo marba marka ka dambaysa kor ay u sii kacayso tirada xoolaha puntland ay dunida u iibgeyso qodobka afraad waa horumarinta arrimaha bulshada oo guulo waaweyn laga gaaray 1998 ma jirinin xarumo caafimaad oo rasmi ah oo ku yaallay puntland laakiinse maanta waxa ay leedahay 419 xarumo caafimaad oo isugu jira cisbitaallo heer gobol heer degmo ee bara caafimaad dhakhaatiirta hooyooyinka iyo dhallaanka xarumaha karantiilka iyo goobaha xanuunnada halista ah dhinaca waxbarashadana puntland markii la aasaasay ma jirin xarumo waxbarasho ha yeeshee maantay waxaa ka jira 284 xarumo waxbarasho oo isugu jira jaamacado dugsiyo hoose dhexe iyo sare iyo waxbarashada dadban iyo xarumaha farsamada gacanta biyaha iyo tamarta ayaa muhiimad gaara la siiyey waxaa la qoday kumanaan ceel biyood si loo yareeyo baahida biyaha weliba xilliyada roobabku ay baaqdaan waxaa la hirgeliyey biyo xireenno iyo waro biyaha lagu kaydiyo waxaana la horumariyey biyogelinta magaalooyinka iyadoo sidoo kale kor loo qaaday adeegga tamarta cadceedda laga dhaliyo si koronto ku filan ay u helaan magaalooyinka puntland meelaha hawshaasi sida fiican uga socota waxaa ka mid a magaalooyinka boosaaso garoowe iyo gaalkacyo iyadoo laga duulayo isbeddelka cimilada iyo ka hordagga xaalufka deegaanka dowladdu waxa ay qaadatay siyaasad ay ku ilaalinayso deegaanka iyo duurjoogta waxaa la buuxiyey boholo waaweyn oo qodnaa si looga hortago nabaadguurka waxaa la mamnuucay jarista dhirta iyada oo la fudeeyey adeegsiga gaaska wax lagu karsado si loo yareeyo ama looga maarmo isticmaalka xaabada waxaa la mamnuucay ugaarsiga duurjoogta si aysan u dabargo'in waxaa iyana la mamnuucay bacaha
waxyeeleeya dhirta haweenka puntland oo ah lafdhabarka bulshada waa udubdhaxaadka dowladnimada door muhiim ah ayay ka soo qaateen marxaladihii kala duwanaa ee puntland ay soo martay waxaa la xoojiyey doorkooda firfircoon ee ay ku yeelanayaan golayaasha dowladda puntland sidoo kale waxa ay maanta si weyn uga dhex muuqdaan qayb kasta oo ka mida hay-adaha dowladda ciidamada garsoorka iyo arrimaha bulshada dhallinyaraduna waa tiirka ugu badan ee ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda puntland sidaasoo ay tahay dowladdu haddana waxay u fududaysay fursado matalaada markii la hirgeliyey doorashada qof iyo cod oo ay noqdeen tirada ugu badan ee codaysay iyo tiradii ugu badnayd ee la doortay dowladdu ahamiyad xoog leh waxa ay siisay isboortiga iyadoo ka hirgelisay garoommada kubadda cagta ee cagaaran magaalooyinka garoowe gaalkacyo iyo boosaaso haddana uu socdo qorshaha dhismaha garoommo cagaaran oo laga hirgelinayo baran qardho iyo galdogo waxaana la qabtay tartamo kubadda cagta ah heer gobol heer degmo iyo kii horyaalka puntland sidoo kalena waxaa la dhisay garoommada ciyaaraha fudud dowladda puntland waxay u taagan tahay nidaam dowladnimo oo amni iyo horumar ku dhisan oo horseeda dowlad soomaaliyeed oo federaal ah iyadoo oo door shariifana ku lahayd ka midha dhalinta burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kadib in dalku u yeesho dowlad loo dhan yahay oo federaal ah oo fadhiisatay villa soomaaliya soomaaliya waxay ka faa'iiday dowladnimada puntland waxay dhashay maamul goboleedyadoo dhan waxa ay dhashay dowladdii federaalka maanta inta puntland ka jirta oo kale ayaa ka jirta maamul kasta taasuna waxay ku tusaysaa in laga gudbay awooddii halka magaalo ku aruursanayd oo la yimid muxuu ahaayey awood baahsan marka taas waxay ku tusaysaa wixii ay bilowday puntland maanta in soomaaliya oo dhan ka faa'iidaysatay dadaaladaasna waxaa ka dhashay shirarkii lagu dejiyey dastuurka soomaaliya ee garoowe 1 iyo garoowe 2 iyo heshiiskii gaalkacyo waxaase hadda dhacday in la baalmaray wixii hore loogu soo heshiiyey oo uu kow ka ahaa dastuurka kumeel gaarka ah oo uu laalay madaxweynaha xilligiisu uu dhammaaday haddaba ma dhiman rajada ummadda soomaaliyeed ay ka qabto in mar kale ay hesho xukuumad u rumaysa waxa ay ku taamayaan oo ah nabad iyo horumar dabaaldegga iyo damaashaadka 28 guurada puntland ma aha oo keliya in aannu dib isu xasuusinno asaaskeedii iyo horumarka la gaaray oo keliya ee waa astaan ifinaysa inuu sugan yahay horumarka mustaqbalka ee dhinacyada dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka amniga iyo arrimaha bulshada ee puntland dabaaldeggani waxa uu dadka puntland iyo soomaalida kale iyo duniyadaba u dirayaa farriin cad oo ah in xasilloonnida dhisidda hay-adaha iyo horumarka puntland lagu gaaray midnimo sidaas iyo daraaddeed puntland iyada oo wada jirta oo sharaf iyo karaamo huwan ayay maamuusaysaa guulihii hore waxaana si kalsooni leh ay ugu sii soconaysaa tubtii ay cagta saartay 1998 oo ay ku hiigsanayso mustaqbal ifaya berri iyo saa dambe hantideedu waa qaran xalabsiga midnimaadi